inta badan dadka qaar lama daneeyo dibna looma fiiriyo duruufaha ku xeeran waxaana mararka qaar laga yaabaa in iyagu ay muhiim u noqdaan nolosha kuwa badan oo inaga mid ah. Macallin Ooyow Abuukar Cali waxa uu muddo 20 sano quraanka barayay caruur Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. والسماء ذات البروج isagoo naafa ah ayuu yaraantiisii ku dadaalay inuu xifdiyo quraanka si uu u sii xifdisiyo ubad ay qoysaskoodu dan yar yihiin. ilmahan aad u jeedid quraanka badana way dhameeyaan qaarna hadda ay sii wadaan alxamdulillah ilaaha ma hada iskale marka ilmaha aniga mashahar haddi oo aan ku qaato ma jirto waa dad sawaalaysan oo coos gurato iyo jaabo gurato ehelkooda iskaga badiyeen mashahar ma ku qaato bil meel hadda wax ay fuusho dad ka qaato maanta oo kor u fiirahay ma jirto waa marka bursida dan oo ku soo noqoya marka ajirkaas ilaahay darkiisa iskaga baraada taasan iskaga dhax jira marxaladaas iska jirto marka colaad badan ay u jirteen inta la iskaga noolay way wax waa barayle dugsi waa iskaga dhax jiri marka alxamdulillah ilaaha ma iskale haddana sidii u jooga marka magaalada marka aan rabo ma haasto baawur amal markoo ismaaqula markoo leega wace $3 ali qaatay baawura macnaha aliw wax lacag kama qaata ardaydan sababtuna waa in aysan bajirin waalid si joogto ah ilmihiisa uga dhiibi kara qarashka maadaama ay dadka magaaladan ka soo kabanayaan colaad baabi'isay habnololeedkoodii. Maymuun Xuseen Maxamed waa hooyo 5 caruur oo mid quraanka dhameeyay ay u dhigtaan dugsiga Macallin Ooyow. aniga waa magacayga Maymuun Xuseen Maxamed maskiinka cuuryaanka wax la sii male badi dad masaakiin ay caruurtooda dhigat waxba la sii male ninkii 4,000 3,000 iltimaad bil wax meel u saara male wasqaato aniga 5 ruux ay dhigat xabadan sii male hal ruux ay dhameey inta kale wali way dhimantahay saasa jirto. السلام عليكم معلم أمودي. السلام عليكم سيتا سوما في عنيد وويلكي وريها ما أنت كل بلمي وصوق على سوما وهي معلم هاي للحي القيوم معلم أمودي ومعلم كله أو دكسي قرآن إسنا كوها ميل إلا دور تلابة وجرته halka uu dugsiga quraanka ku dhiga Macallin Ooyow macallinkan oo nin da'diisu ay aad u weyn tahay ayaa waxa uu leeyahay araga waxa uuna in badan soo saaray dadkii quraanka kariimka ah ama dadka magaaladan qaar ka mid oo badan oo runtii dad waaweyn ah bal isna waa la kulmi doonaa. muddo hadda laga joogo 6 sano ayuu araga beelay isagoo dugsiga haysta welina kama uusan harin in uu dadka diinta Alla baro inkastoo ay jiraan duruufo badan oo noloshiisa saameeyay. waxa ugu weyn duruufaha haysta in uu sii dumayo dugsiga ay ka aflaxeen dad uu ii sheegay in qaarkood ay hadda xilal ka hayaan dawladda kuwa qurbaha ku maqan iyo kuwa dalka jooga. 95 aan bilaabay dugsiga ayaa ilaa 150 ilaa 200 amal ka aflaxday marka alxamdulillah ayaalkani qaarna Yurub jiraan qaarna Xamar qaarna Marko marka ala yahal alxamdulillah aad ma iska fiicnahay xaga indhaha mar dhow muddo 6 sano amal indhaha saa iga naqdeen roobkii daraad oo haweenkii 4 da'ay ayaa dumiyay dugsiga marka kole in la dhisane waa iska jeclahay marka alxamdulillah dugsiyada quraanka ayaan Soomaaliya ahmiyad badan la siin macallimiinta dhigta ayaa iyaguna ah kuwa duruufaysan oo aan wax mushaara ku shaqayn dadkuna inta badan sida iskugu taxalluujiyaan iskuulada iyo goobaha kale ee lagu barto cilmiga maadiga iskuguma hawlaan dugsiyada lagu barto kalaamka Alle taas oo xaqiiqadeeda aan ahayn mid lagu murmayo. Maxamuud Soo Faysane telefishinka Shabeelle Marka Cadeey.